koonkan aadmiga jooga qof kasta kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waane markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan baa'igu ogo kismaayo balaayaa ka dhacday war nugtaasi qaacdaas xamaran ku weyne 4.5 ma laga dhigay malaga rari maya kismaayo hadda way allahumma najayna بعيدا خير خديب قفكين لا كله warnimaya horta hotel la weeraayo intii bugdon weerna iidan hortiis lika deediyow muqdisho aama ka hayti baydawna saasa mala marko seen ka dhiyaayeen gaalka inuu reebto yoon ka dhiyaayeen laakiin kismaayo adankoon atu urudu marka may oo soo ale reer kismaayo aan feejigsanayeen may hali hundireena waraniga wax walba waxa iga darnaa markii qaraxee dhaca kadib ayay lixnimo boolis iska dhigaysaa timid oo iska dhigaya inay dadka badbaadinayaan laakiin dhaawacii dhammaystiraya kiifiyoobaan halkiisii ku dilaya in dharka ciidanka la soo xirto muqdisho aan ku ogeyne kismaayona ma la soo xirtay yaa aree maxaad isnoojinaysiin haddii sun inta lagu buufiyo dariskana waa gaaraysaa kismaayo muqdisho dharka ciidanka isku meelaa lagu keenaa laakiin waxaa la yidhi dhaqankooda kala bedelan warwar ma haysaane meesha how iyo jugtu ka dhacday waa duleedka saakow war jubbada dhexe wixii jubbada wasleedka ismaa loogu haray wariga amasa sheekada hay ka dhex geline gudoomiye cusbaan gobolka banaadir al-shabaab ay u magacaabeen dhowaan xalaa saakow cirka looga soo dhacay kii asaga ka horeeyay cali jabalne waa tii cirka looga soo dhacay yaa oo toddobaad baxilka ma haynine maxaa loo dedejiyo cirka looga soo dhacayne war hore ayaa waxaa loo yidhi nimaan cimraynin ceel bagey cirkaa wax looga soo ridaa war ninkaa shartiisa laga hortagay maxaad ulu sugaysa intuu xilka la wareegay awalan waxaan la yaabanaa gudoomiyaha gobolka banaadir loo magacaabay oo saaka uu qaraxyo ku diyaarinaya aniguna waxaan la yaabanahay yariisoo baa u dul qaadanaya gudoomiye kaloo loo magacaabay gobolka banaadir war waxaan maqli jiray dilaagii wax dilaayoo dilaa soo magacaabo aakhirkaa la dilaaye amiirkii ma dileen dilka loo magacaabay haa aroo waa la dilay hindigana waxay dhahaan khatilunkii khatilay dhahaan war hindigin isbaaril likadey qaatilkaada sheegan may hay nahi badbadka hee meerto war isbaarada qaadico dariiqa la yidhaha waa waalan tahay war dadka kismaayo ku dhintay allah u naxariiste waa badiyiin waxaa ka mid ah odanaaley ninkeeda facebook caanka ah waxaa kaloo ka mid ah musharax la yidhahdo suuriye iyo warigii axmed dheere iyo dad kale war intii dhimatay allah u naxariiste inta nool caana booro iyo abni ma u heli kartiin shacabka dhan walba ha laga dilo laakiin waxaan hubaa madaxda iyo shacabkaa soo haray war xaaqinkii xasan sheekh sheegi jira maa kugu soo dhacay war madaxweyne xasan sheekh wuxuu yidhi dagaalka shabaab waa in loo midooba war waxan waa dhakafaar abaan xidig baa wuxuu yidhi adigoo dhakafaarsan qof kaloo dhakafaarsan war haddaad isdhahdaan isagu waa dhakafaaray adiguna waa dhakafaartaye arrinkii dhakafaar iyo awalow dhakafaaraye ma isla sii dhakafaarnay heedna kadakoo dhuuriye boorhumallankun warnimo yawaanow xala waa gebiyey waxayse igu darnayd saaka markaan ku soo gebangabeeyey lax duqowday idaheeda waa inay la joogtaaye maxay geela ugu soo dareen madaxdu waa yaabe intaasaan ku soo koodaya ayaanan sii badin haddaba gadaasha waxbaa ka guuha gabay hume niman wax garan gabay xulloo tiriya sideen waxyeelna ilaa ii wakhtigii waxaan joogay zaman nebiga yoomudiinka haddana la joogaa adduunyadanoo kale waa ii dhiman tahay intay ka yimideen kuwaan saan u hadlaayane war wiilkii foganeegaha saaka gabay buu keenay cajaa'iba wuxuu yidhi musuq maasuqaan gaaray oo qiiqayaa jira qurba joogta unbaa loo qoraa hawlihii qaran qorshe male intii kale bulshada waana qadayaan qiyaastayda arrintaasi waa nooc qabyaalada inaan qalabka soo qaadanay nugu qasbaysaa buu yidhi galmudug adaada gaalkacyo galmudug adaada gaalkacyo kooxda mashiixday waxaan idiin sheegayaa xaal jirana lama socotiin mana xishootaane gelmudug ma waalnay adinkaa waalan khayraana jira hawsheedana waa la soo gebangabaynaya insha allah warnimiyow ra'iisul wasaare khayra markii hore may bahay siday shahaado masar hadutoo PhD oo galmudug ku gaadoohay war shahaadadaasi odaasha dhaqanka cadaadamiya ama macalin maxamuud war
maqlaysiine gudoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi weligii qurbajoog ma noqon war mursal uma jeedo baydhabo ka yimid oo baydhabo qurbaha may ka mid tahayna sidii galmudug oo kale buda iriroogu wariya baydhabo ilaahay baa waxaa idinka odhanhaya warwarkaana ka dhex gelina idin dhegaysta labada gudoomiyaha baarlamaanka khilaafku waa soo afjarnay dheheen yaa markhaati ka hayne war baarlamaanka awal magaalkacayuu ahaa xaytaa labada gudoomiye markhaati idinma dhinnee cabdi xaashiyaa hadlay wuxuuna caddeeyey inay heshiiyeen wariya maday mursal markhaatada ma ka darto maangariida baladweyne kasta yemu ahay mi maqlaydin war wabigii miyaa inku fatahay may maqlaydin roja affirmative arwaa ku maqlaa taleefanka iga jajabin hadda hadlaysa hadal haddii maqlaydid isu dabageed xilkii waa wareeji intaa muxuu isugu dhajinayaa hadduuba wareejinayo mawaaro wax ka jafjafanay may maqlaydin war may maqlaydin halagu waalnina su'aal iga jawaaba shirka hobyayaa ka qayb gelaya inay gafaanjaa ka qayb gelaya waxaa la yidhi xeeb yaroo turubjaan iyo jarabaas lagu dheelo hebel jookarta saar iyo ergadiyo hobyo joogtiyo lacag jaadwala qaatiyo shabaq baan maqlayaae yaa jabbaynta cayaaray war meelilka iyaaroy bariga dhahawu kowdhe gabaygu oo dhegensooy geela markuu qaajooda waa inuu ariga laayaahe dameerka markuu qandhadana waa inuu laamiga yimaadaaye alloo meeshan gabay waa ku baaba'ay anugu war waxaan iska daayey markuu madaxa isaaq maanta yidhi afkaaga yaa fahmaya bal asaga kiisa yaa fahmay war ra-iisul wasaare khayre garoonkii ugu horreeyey oo gaalgacyo ku yaro almidu ku bilaabay waa kii yidhi waa dhisaya laakiin garoonkii markii dambe u tegey lacagtii lagu dhisi lahaa waa uu shubay marka oday labada garoon muxuu u kala yaxday warnaba xariif matid waxna ma fahmaysid garoonka dhinaca puntland guddi aamin oo wax lagu dhiibo uu leeyahay laakiin garoonka dhinaca galmudug weli guddi aamina ma yeelan warnimayoo wax kalaa jira canshuurta banaadir hadda gaalkacyay sii dhaafaysa laakiin midda boosaaso weli burtin lama soo dhaafin aribow xasuus ma lihidaan qaraxii soobe dowladda puntland meeqay ku deeq bowe 2004 naf iyo maalba muqdishoaanu ku bixinay warkoogla wuxuu yidhi dadkoo dhan aniga aqaan facebooka ka daba hadlo wuxuu yidhi dadkoo dhan aniga ayay i yaqaanin whatsapp ayaa ka daba hadlo wuxuu yidhi dadkoo dhan aniga ayay i jecel yihiin internet ayaa ka daba hadlo wuxuu yidhi intiinaba anigaad ii shaqaysaan korontaa ka daba hadasho waxay tidhi jaqjaqdiina iga aamus haddii kale waa idin wada daminayaa baraada meesha gabdhashina laga helaayey ee snapchat baa ka tagtay war urudkii dhanaa laga tegay imiyaa laga tegey artitoga laga tegey war bahyaradii twitter dhaliyaa ka tagteen war waxaanu ma afshiinaysay ku hadlayaan war dad sheegi mayaan war dugaag sheegi mayaan war duuyana sheegi mayaan iyaasansuuqu war ma haysiine cudur xunoo la aqoon waayaa dalka soo galaalay qofka kow qandhaa qabanaysaa layidhi haddana waxaa la yidhi dhuuntaa looga dhegayaa kadibna qufac iyo matag buu bilaabayaa kadibna qalaf waayaa layidhi wax badan sii joogi maayo siixun wuxuu sheegoo la yidhi sixir waa ka dadanyahay afka allah ku laqo wallaahi yaab waaye soomaaliya intiiba saan ku socota cudur iyo colaadba kama helaayan mar walba waa kor joogayn ee ilaahay iimaanka ageliya soomaaliya war soomaaliya iimaanka ma la'ane dadka soomaaliyeed wey waxa iimaanka le intaas oo kala wadaayna kor lagaaga soo dhacye iga tag maane amiira marka kor layga soo dhacay war madaxweyne xaafo xanaaqsi wuxuu yidhi sokoye la jecel yahay ma ihi shashaye laga cabsadana ma ihi waryaaya muranka iyo dooda iska daysaan dalka u shaqeeya oo danihiinna u shaqaysta sareeda hadday ku waarto hadduu sila iyo dhib gaaro samaanteed iyo xumaanteed soomaali baale war annaga nama lihida been hanaga sheegin ilaahay baa naleh kalamaan ku soo koob intaa yaanan sii badin aroo kala jooga iimaankaa wow idinka yidhi si kastaba ha noqotee soo jireenka dhaqankiyo soomaalinimadan dadka kaga sarreyna si kastaba ha noqotee soo jireenka dhaqankiyo soomaalinimadan dadka kaga sarreyna soomaalinimadan dadka kaga sarreyna dadka kaga sarreyna dadka kaga sarreyna
Thank you.